maalin dhaweyto haweeney baa isoo wacday in badan bay telefoonka igu soo celcelisay anna mashquul baan ahaa xafiiskaygaan joogay qiso markii dambaan la hadlay dabcan qofka iyo magaciisii iyo ma sheegayno annagoo ilaalinayna maaragtay wax badan laakiin qisadu waa qiso xanuun badan waxaan idinku sheegayana waxa weeye waxaan u baahannahay inaan ka taxadarno haweeneydaas waan wada hadalnay telefoonkii bay igula hashay waxay tiri iyadoo ooyeysa oo xitaa aan hadli karin oo hadalkeeda aan fahmi la'ahay oohinta ay ooyeysa darteed yaa waxay ii sheegtay arrin aan aad uga naxay runtii oo shoog igu riday waxay igu tidhi maanta wiil aan dhalay oo 13 jir ah yaa wuxuu ii sheegay inay niman ciyaalo suuqiin ah oo superpower iyo wax la mid ah ay isticmaalayeen muddo 7 sano 7 years ma noolaba wiilku dugsiga markuu ka soo baxo jidkay u istaagaan bal dugsigay ugu tagaan iskuulkay ugu tagaan 7 sano bay isticmaalayeen rag waaweyn dhowr iyo 20 jir ah ma noola haweeneydii wax alla waxay samayso ma laha way iska ooyeysaa maxaan sameeyaa bay leedahay ila taliya waxay la qabta wiilku intuu kaxeeyey ayuu wuxuu tusay qaar ka mid a raggii faaxishada ku samaynayay korka ka tusay waa islii meel kale ma الله مستعان gabadhii haweeneydii ama hooyadii waxay tiri aabihiis hadduu waxaa maqlo suurtagal waxaa horta nimankii inuu dilo oo gacan ula tago oo kow ka siiyo diliba dhiig inuu daadiyo shaki igama jiro inuu dili taa hadday dhacdana waa ka sii daran tahay sheekadu bal xataa wiilkan ka yaabay inuu dilo uu yidhaahdo khalaas kani faa'iidaba ma laha uma sheegi karto odaygii way ka baqaysaa waxay kaloo ku leedahay nimanka haddaad taqaanaan dhib mal askar baa loo dhibay waa la xirxiri baan ku yidhi dad askar ahoo ciidan ahoo muslimiina jire ayaga haddii loo sheego nimanka waxaa samaynaya ummadda ha laga qabto ha la xirxiro maya hadday taasi dhacdana qadiyaddii waa la ogaan waanu ceeboobi wiilkayga mustaqbalkiisii iyo qoys ahaan oo dhanba ceeb baa nagu dhici taana ma rabo inaan sameeyo يعني مجتمع دبك هيستا بان ربعنا دي شيغو يعني مجتمعين دبك هيستا لبير ما اها talooyinka asiyay waxa kamida dabararta inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u laabato wiilkana wiilku markii dambe uu isdhiibay carruurtan hadda iskuullada iyo dugsiyada aan geysanayno ma ka warhaynaa xaalkooda si waan u eedeeyey gabadha waxaan ku yidhi wax 7 sano socda inaad adoo hooyaa garan weydo horta gaabis baa meesha ku jiraan ku yidhi midda koowaad hooyadu door weyn bay leedahay ilmaha dhaqdhaqaaqiisa meeshuu aado jirkiisa wax walba waa inay ogaato laakiin maxayna lagu saliday naagaa guriga ka shaqeeya damba kama laha hooyadii kuwaasaa laga yaaba haddii xataa kuwa yaryarina loo qubaynayo inay u qubeeyaan waxba kama oga dumarku waxba kama oga in badanoo idin ka mid a runtaa fiican soo ma هذه مصيبة
mas-uuliyad darro waxyaabaan kula taliya waxaa ka mid a horta wiilka in halkan laga kaxeeyo maadaama bay-afaha sida ay tahay nimankii dhibaatada ku samayn jireen ay joogaan waxay ii sheegtay inay Soomaaliya ka soo jeedo Soomaaliya gee baan ku yidhi meesha reerkiinu ka soo jeedo bal marka hore ha ka dhex baxo bay-adan hadduu laakiin tan kusii dhex jiro waxa weeye xataa naftiisu u baqayaa hawshu way soconaysa taladu aabihiina u sheeg baan ku yidhi hadduu rabo ha dile wax laga qarin kara maa wax la qarin kari waxaan la qarin karin baa jira tan oo kale wax la qarin kara ma aha nimankaasna waxba wiil isagu aad iyo ceeb ma laha waa la faraxumeeyey waa la xoogo waa la dhibaateeyey ummadda ha laga qabto carruur dambe oo Soomaaliyeed iyo wiilo dambe oo Soomaaliyeedna dhibaateynaya nimankaana soo sheeg baan ku yidhi meel baa looga soo hariyay almuhiim waxaan iigu sheegay qisada waxa weeye kulligiin hooyooyin baa tihiin kulligeen aabbayaal baan nahay waxa markaad maqasho markiiba carruurtaadii baa kugu soo dhacaysa Soomaa markiiba kuwaad eedada ahayd iyo kuwaad habarta ahayd baa kugu soo dhacaysa Soomaa jira marka silaaliya fidnada ka jirta meeshan wax maskaxda bani aadamka gali kara ma